marka hore waxa uu faahfaahin ka bixinayaa doorka ay warbaahinta ku leedahay dib u dhiska dalka ama dal burburay iyo sidoo kale dib u heshiisiinta. Cabdullaahi Cabdi Sheekh ayaan ku soo dhaweynayaa. Marka waxaynu kulligeema wada ilaalin doonaa waqtiga 8 daqiiqo calaa qof, kadibna waxaanu siin doonaa ka soo qaybgalayaasha si su'aalaha ka guuxaya ay ula wadaagaan panelka. qofka raba inuu su'aal weydiiyo panelka, qof buu ka dooranayaa su'aashiisa. dabcan qof kasta wuxuu soo jeedinayaa mowduuc gaar ah oo ku saabsan doorka ay warbaahinta ku leedahay dib u dhiska. haddii Cabdullaahi Sheekh uu doonayo inuu su'aashiisa ka jawaabo, Cabdullaahi Sheekh ayaan su'aashaas weydiinayaa. haddii Salwe, haddii maama Shukri Afrax, sidaas ayaanu ku wadan doonaa insha Allah. waxaan rajeynayaa in doodeenna ay noqoto dood cilmi ah oo wax badan laga faa'iido, oo ma arkin oo aan si shaqsi ah dadka loo beegsan. ku soo dhawow Cabdullaahi marka hore. mahadsan tahay. waxaan u maleynayaa maalin dhow inaad tiri 10 daqiiqo, laakiin hadda labaad ka jarta, dhib ma jiro. akhyaarta sharafta lehna waa salaamayaa. waxaa sharaf ii ah ugu horreyntii inaan qayb ka ahay doodani iyo hadalkani muhiimka ah. maxaa yeelay warbaahinta inta badan waa hagaha bulshada. tayada warbaahintana waxaa wax badan ka ciyaartaa bulshada wanaageeda ama wanaag la'aanteeda. marka aniga 8 daqiiqo liisay waxaan rabaa inaan diiradda ku saara aan isbarbardhig yar aan ku sameynaya laba wadan oo aan isleeyahay waxay la mid yihiin ama u dhow yihiin xaaladda Soomaaliya wax ka dhacay horay uga dhacay taariikhda oo kala ah Kenya iyo Rwanda iyo misaalka Soomaaliya iyo casharadii ka soo baxay iyo casharada misaal ahaan ay Soomaaliya xaaladeeda ay kala soo bixi karto. waxaan rabaa inaan ku bilaabo Rwanda. 94 dabcan waxaa ka dhacay xasuuq aad u daran oo 800,000 oo qof lagu dilay. dad qaar waxay leeyihiin 1 milyan. warbaahinta door aad u weyn actually laf dhabar ay u ahayd xasuuqaasi. ka hor xasuuqa warbaahintii jirtay waxay ahayd warbaahin propaganda ah. laba qayb ay ahayd. raadiyaha dawladda Radio Rwanda waxa uu adeegi jiray dawladda marka ay jirtay. mucaaradkana wuxuu ka dhigi jiray wax aan wanaagsanayn. dadkana waxa lagu eedeyn jiray badi Tutsiga. dabcan waa taqaanaan Hutu iyo Tutsi ahaayeen. wadanka xilliga asaga waxa maamulay Hutu. mucaaradna waxa aha oo jabhad aha Tutsiga. qolada talada haatan haysa Kagame waxay ahaayeen mucaarad xilliga asaga aha. Uganda ay ka operate garan jireen. marka raadiyaha dawladda wuxuu u hadli jiray Hutuga. mucaaradkana markii dambe waxay sameeyeen raadiya wuxuu u hadli jiray Tutsiga. markii dambe laakiin qoladii dawladda ama Hutugi waxay u kala qaybsanayeen qolo dhaxdhaxaad ah iyo qolo mayal adag. qoladii mayalka adka macal raadiyihii dhaxdhaxaadka aan ahayn ee dawladda waxay u arkeen inuu yahay mucaaradka inuu la safan yahay. waxay sameeyeen warbaahin. marka waxaa soo baxay wargeyskii ugu horeeyay ee xaq jirka ahaa. marka waxaa la dhihi jiray Kangwara. wargeyska wuxuu ka hadli jiray inta badan erayadu isticmaali jiray waxaa ka mid ah khaa'in wadan, cadow. waxay aad u isticmaali jireen erayadaas oo ay doonayeen inay maaragtay ku fogeeyaan ama ku foolxumeeyaan ama shacabka ay kaga hor keenaan dadkii mucaaradka ahaa ama jabhadda ahaa. markii dambena waxayba keeneen raadiyo iyo television RTL la dhihi jiray oo kaba sii darayba. oo xilligii xasuuq uu socday intuu xasuuq bilaaban raadiyaha wuxuu ku baaqay in la laaya dadkii Tutsiga ahaa iyo dadkii Hutuga ahaa. raadiyaha leh dadka hala laaya, hala idbiye, hala ciqaaba. inta ka horna wargeyskaas wuxuu dhihi jiray yani xitaa faalla mar lagu soo qoraa jirto oo la leeyahay ninkii guursada gabar Tutsi ah waa yani khaa'in wadan. ninkii saaxiib la noqdo gabar Tutsi ah waa khaa'in wadan. faalla lagu soo qoray, wargeyska lagu soo qoray.
waxaa kaloo Rwanda intaa u dheerayd iskuulkii ugu horreeyey ama college-kii ugu horreeyey ee wariyanimada lagu baranaya waxaa la sameeyey 99ka intaas ka hore ma jirinba qof wax u soo akhristay ama yani warbaahinta wax ka fahansan ama college u galay ama jaamacad u galay ma jirin 99ka ugu horreeyey iskuulkii ugu horreeyey ee warbaahinta ee lagu barta markii dambana waxaa la sameeyey sharci waxaa la sameeyey nidaam fara badan la sameeyey warbaahintii la abaabulay laakiin ilaa haatan dooda Rwanda ka taagan waxay tahay xasuuqii kadib maxay yeelay warbaahinta xasuuqa ka hor waxay ahayd mid furan waxay rabtay sheegaysa xasuuqii kadib waxaa haatan ka taagan dood ah xasuuqii iyo cabsida laga qaba inuu xasuuq ama wax la mid ah ay soo baxaan miyaa kaliftay ama keentay in warbaahintii afka loo qabta maxay yeelay hadda shuruuc badan halka ka jirta waxaa ka mid ah in ninkii ama wariyihii qora war isku dir keeni kara ama incitement keeni kara oo maaragtay 20 sano xarig u galaya taasa marka su'aalo badan ka taagan haatan caburintii miyay ama xasuuqii miyuu keenay miyuu sababay in warbaahintii afka loo qabtay yani ay cabsata oo self censored waxa la dhahaa ama qofkii wariyaha ahaa uu laftiisa xakameynaya sharcigana uu yaalo uu leeyahay qofkii sheega war isku dir keeni kara ama in qof la dilo ama qof la bartilmaameedsada keeni kara 20 sano xarig uu mutaysanaya waxaan rabaa marka inaan Kenya u gudbo Kenya 2007 waad ogtihiin waxaa ka dhacay post yani doorashadii kadib iska horimaada ka dhacay wadanka oo muddo yar oo kooban socday laakiin dhibaato fara badan ay ka dhacday ee kala qaybsanaan fara badan iyo dil fara badan baaritaanadii ama studieskii lagu sameeyey Kenya waxaa cadaatay dabcan warbaahinta Kenya dhowr ay u kala qaybsantay ilaa maanta waxaa jirta vernacular radio warbaahinta ku hadasha luqadaha dadweynaha laba luqada wadankan ka ah مثلا luqadaha qaranka Ingiriiska oo luqada lagu shaqeeyo ah iyo Swahiliga oo ah luqadii dalka Soomaha laakiin waxaa jira qabaa'il kala duwan qabiil kasta wuxuu leeyahay raadiyo ku hadla luqadiisa Soomaalida kamid ah Star FM iyo waxaan leenahay kuwa sida la mid ah Soomaha midnimo iyo kuwa fara badan sidoo kale qabaa'ilka waaweyn waxay leeyihiin raadiyaal sida la mid ah marka baaritaanka waxa lagu ogaaday in xasuuqaas ka hor ama dilkaasi ka hor ama dagaaladaas ka hor warbaahintii luqadaha dadweynaha ku hadlaysay qabiil walba warbaahintiisii inay adeegsanayeen ereya maldahan oo qabaa'ilka kala lagu fogeynaya oo maaragtay jalwada way qabeen ramoogi kalanjiinta way qabeen kikuyada way qabeen baaritaanka lagu sameeyey raadiyayaasha qaabkay u hadlayeen xasuuqii ka hor waxaa lagu ogaaday in ay adeegsanayeen ereyo maldahan oon toos ahayn laakiin la fahmayay oo dadweynaha ay fahmayeen oo lagu fogeynaya qabaa'ilka kale ee ka soo horjeeda dowr kale waxaa jira iyadana warbaahinta caadiga oo Soomaaliga Ingiriiska ku hadasha oo iyadana kala qaybsanayd la kala safnayd mucaaradka iyo dawladda oo marka qofkii mucaaradkana marka iyada ahayd wargeysku gadanayo uu garanayay qofka dawladda taageersanna wargeysku gadanayo uu garanayay marka tii waxay keentay in ka hor doorashada dadka way sii kala fogaayeenba waa la kala taagnaa waxaa diyaar loo ahaa in la isku kala qaado waa la kala fogaaday maadaama warbaahintii vernacular-gana ay dadkii kala fogeysay warbaahintii caadiga ahaydna ay kala safatay qabtii kadib marka Kenya waxay qaaday tallaabooyin badan oo arrintii ay ugu hortagayso waxaa ka mid ah in la soo saaray shuruuc la xiriirta hate speech ama hadalka ku dhisan nacaybka oo wadanka laga mamnuucay siyaasiyiinta in warbaahintana ay sii dayso ama ay tabiso tan kalena guddiyo waxaa la sameeyey guddiga isku xirka bulshada marka Soomaaliya aan u gal hal daqiiqo ku dhiman oo ilaahay saaxiibkay 10 daqiiqo hore aad isku fahanaa Soomaaliya marka warbaahinteedii
horta dilka Soomaaliya ka dhacay waa mid muddo dheer socday ma ahayn mid hal bil inta soo kun ay ku dhinteen laakiin waa mid laba maanta dhimanay 5 dhimatay daraa 10 dhimatay markii loo suka keena la isku keenay badanay laakiin markii muddo dheer loo qaybiyo waa dhimashada saa uma sii badnayn taasaana laga yaabaa inay tahay sababta aan indhaha caalamka aad aanay uga maartay diiradda aan loo saarin laakiin warbaahinta waxay ahayd mid kala qaybsan oo ku dhisan urur wata magac fiican oo wadani ah laakiin runta marka la sheegana qabiil ah waxaa kaloo jirtay wariyaashii waxaa yaraa xirfadleyda dadka wariyaasha ah ee xirfadda leh waxaa kaloo jirta iyadana in badi siyaasadda ay ku dhisan tahay qabiil laakiin iyadana aan la sheegaynin masalan hadda Kenya haddii ay isu yimaadaan siyaasiyiinta kasoo kikuyada andhaha warbaahinta Kenya ma dhahaysa kikuyaa shirta laakiin waxay leedahay siyaasiyiinta gobolka bartamaha Kenya oo isu yimid ma khaldayaan bulshada ma dhahayaan siyaasiyiin wadanka isu yimid waxay leeyihiin siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka bartamaha isu yimid haddii ay shiraan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Rift Valley siyaasiyiinta Rift Valley ah shiray marka waxaan leeyahay marka oradan ku maraya halka daqiiqa xalka muxuu noqon karaa marka kow in la soo saaro shuruuc hagaysa yaa wariye noqon kara qof kasta wariye miska noqon kara in su'aashaas horta la isweydiiyo tan kalena la isweydiiyo ma jiraan ururo adag oo wariyaasha ay leeyihiin oona abaabulan oo maaragtay ka shaqeyn kara wanaagga saxaafadda tan kale oo aadka ayadana in looga hadlo u baahan waxaa waaye ma jiraan guddiyo maxaa yeelay ururkii wariyuu u hadlaaya danta wariyuu eegaya wasaaradda warfaafintana waxay eegaysaa danta dowladda soo maaha ma jiri karaa guddiyo ka madax bannaan labadaba oo hagi karta ma la heli karaa tan kale oo laga hadli karana waxay tahay oo ay tahay oo wadamadan kalena ay ka soo hadleen Rwanda iyo Kenya warbaahinta dowladda danaha dadka oo dhan ma masali kartaa qof kasta cod ma ku yeelan karaa waxaa kaloo ayadana jirta in laga hadla ma la heli karaa shuruuc warbaahinta hagta oo sharci ah oo aan ahayn caburin u dhaxaysa caburin iyo wariyaha mas'uulka ah shuruuc u dhaxaysa labadaas waxaa kaloo leeyahay waxaa fiican ayadana in la haga oo laga hadlo arrimaha Soomaaliya maxaa nacayb ah maxaana nacayb ahayn